بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan dawdiyaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kasto dunida aad ka joogtaan iyo sulbood nala socotaan halkani waa shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo dunida dacaladeed ciid wanaagsan kullu caam wa antum baqeer ayaan soo hordhac idin leenahay meel kasto dunida dacaladeed aad ka joogtaan ciidan ciideeda kale rabbi sama iyo baraare iyo cimri dheer iyo amal saalixan ugu gaarsiiyo meel kasto dunida aad ka joogtaan ciid wanaagsan ayaan idin leenahay qodobada xiisaha badan aan idin hayno waxa ugu daroon amisom oo u muuqata mid gacanta ka taagatay howlgaladii muddo ka badan 10 sano ay ka soo wadeen gudaha dalka Soomaaliya warbixin cabasho ah oo dhawaan ka soo baxday xafiiska amisom iyo sida uga jawaabtay dawladda federaalka Soomaaliya ayaan warka idin kugu soo gudbin doonaa iyo kulan xiiso badan oo magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo qaar kamid ah saaxiibada beesha caalamka maxaa ugu muhiimsan ujeedada kulankaasi oo diradda lagu saaray waxaad ku daawan doontaan warkeena dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo si wada jir ah u soo saaray amar la xiriira ammaanka magaalada Muqdisho go'aanada ka soo baxay dhinacyadaasi ayaad ku daawan doontaan wararkeena isoo istaag lagu sameeyay qorshe uu soo saaray Axmed Madoobe kuna saabsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda waxaanu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda ka taagan magaalada Kismaayo xilli Axmed Madoobe uu soo bandhigay ciidan uu ku sheegay in ay xaqiijinayaan ammaanka doorashooyinka ee deegaanada Jubbooyinka si gaar ah magaalada Kismaayo qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaaye meel kastoo dunida dacaladeed aad ka joogtaan kulanti hagaagsan dawdayaal halkani waa shacabka TV ciid wanaagsan ayaan idin leenahay kullu caam wa antum baqeer waxaad ra'yigiina ku soo cabiri kartaan dhowr daqiiqado ee foodan ugu soo aadan iyadoo ummadda Soomaaliyeed ay dhib weyn ku qabaan joogistii ciidanka amisom ay haatan amisom waxay leedahay waxay u muuqataa inaan isaga bixi doono gudaha dalka Soomaaliya oo midowga Yurub ayaa ka gaabiyay dhaqaalihii ayna sii jireen warka ka soo baxay amisom oo la ogyahay xuquuqdii ciidanka Soomaaliyeed in iyagu ay qabaan ayaa ra'yigiina saliimka ku soo cabiri kartaan qarkiin haddaad ku cusubteen shacabka TV subscribe hadin ahado muuqaalka like inoo saara haatan bal aynu guda ganlo tafaasiisha wararkaasi oo dhameystiran mamaha Soomaaliyeed ayaa ahayd dib qaba intuusan hadlin dheef qaba ayaa hadla wixii uurka yeelana carabka ayaa soo dafaa amisomtii dhibaatada ku haysay dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya iskana guranaysay oo ay ku baxayeen dhaqaale fara badan oo la siin lahaa ciidanka Soomaaliyeed ama lagu dhisi lahaa ayaa haatan waxa ay u muuqdaan kuwa gacanta ka taagtay howlgaladii ay ka wadeen gudaha dalka Soomaaliya warbixin ay soo saareen midowga Afrika toddobaadkan gudihiisa ayaa lagu sheegay in Soomaaliya quus ay joogto waa sida hadalka ay u dhigeen afkoodana eebaha ku celiyay lagana cabsi qabo in dib ay ugu noqoto Soomaaliya waa sida ay hadalkooda u dhigeen kooxda waalida qabta dal baaba ah waxayna carabka ku dhufteen in ay jirto dhaqaale xumo baahsan oo soo wajahday amisom warbixintaasi ayaa sabtidii ay soo saareen amisom hase ahaatee jawaab kulul waxaa ka bixiyay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyada oo loo sheegay amisom waqtigii Soomaaliya la gumaysan jiray inay ka soo gudubtay isla markaana jamhuuriyadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed xilligan wixii ka dambeeya wixii maslaxadooda ay garanayaan haddaba waxaan dib u jaleecinaa qoraalkii ka soo baxay amisom waxaa si gaar ah eedeymo loogu jeediyay EU-da oo lagu eedeeyay inaysan si rasmi ugu go'neen bixinta dhaqaalaha barnaamijka BCC si loo joogteeyo baa la yiri howlgalada ka dhanka ah ururada hubaysan ee ka soo horjeeda xasiloonida Soomaaliya iyo Geeska Afrika arrimaha warbixinta ee aftiimisay waxaa ka mid ahaa in magaalooyinka oo laga helo adeeg bulsho halka miiga aanay ka jirin bay yiraahdeen adeegyo dhameystiran oo ammaanka iyo wixii kale la halmaala haddaba iminka dood dheer ayaa arintan ka dhalatay oo xafiiska madaxweynaha iyo ka ra'iisul wasaaraha waxaa loogaga yeeray saraakiisha sare ee amisom iyada oo sidoo kale wax laga weydiinayo duruufta ku kaliftay in beenta intaan la eg ay ka sheegaan Soomaaliya oo xilligan ku jirto marxalad soo kabasho ah waxaa suuragal ah dawladda Soomaaliya inay ku dhawaaqdo go'aan gudaha dalka looga cirin doono ciidamada amisom waxaana xusid mudan in dhaqaale fara badan oo ku baxay amisom ay mudnaayeen in lagu dhiso ciidanka qalabka sida Soomaaliya ama sidoo kale ciidankaasi xaquuq looga dhigo askariga amisom waxa uu qaataa lacag ku dhow $1 mana jirta shaqo muuqata oo ciidanka amisom ay ka qabtaan gudaha dalka Soomaaliya mararka qaarna waxaa dhacda
howlgalo sharci dar ah oo ay fuliyeen ciidanka amisom in lagu beegsado dad rayid oo Soomaaliyeed oo aanay waxba galabsan. bal dhinaca kale haddii aynu eegno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu kulan xafiiskiisa kula qaatay safiirada caalamka qaar ka mid ah kuwaasi oo magaalada Muqdisho ku sugan. mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamada gooniga ah ee uu xafiiskiisa kula qaatay danjirayaasha midowga Yurub ee Soomaaliya iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo ergeyga Norway waxa uu kala hadlay gabigood dhowr arrimood oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo taakuleynta dawladahaasi. waxa ay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha dhinacyadaasi in Soomaaliya oo ku jirto marxalad doorasho ah ay u baahan tahay taageero dhinac walba leh oo ugu horeyso dhanka dhaqaalaha. waxaa kaloo loogaga digay safiiradaasi inaysan ku dhex milmi karin arrimaha siyaasadda Soomaaliya si xaaladdu aysan kaga sii darin. ilaa xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay shacabka TV ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ay labada mas'uul ugu dambeyntii isla garteen in gacan bir ah lagu dhigo lagana hortago safiirada qaar ee qaska siyaasadeed ka wada xilligan gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo qaabilaad kala duwan ku sameeyay xubnaha sheegta mucaaradka ama murashaxiinta isugu yeeray kuwaasi oo loo yahay intooda badan danta ummadda Soomaaliyeed in aanay ka shaqeynaynin balse dantooda gaarka mid qabiil iyo mid shisheeye oo marka ay rabaan inay hirgeliyaan oo ay ka shaqeeyaan. waana qodob kamid ah waxyaabaha la isku diiday yahay oo mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya had iyo gooraale ay aad uga soo horjeedaan. si waliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hogaaminaya howlaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa dadaalkiisa dadaal ku sii daray waxaana uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble magaalada Muqdisho ka wada kulamadii ugu dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya lagu xoojinayo si dalka ay ugu dhacdo doorasho daahfuran oo lagu kalsoonaan karo. beesha caalamka hore war ay u soo saareen waxay sheegeen in ay taageersan yihiin dadaalka ra'iisul wasaaraha cidna aysan ka hor imaan karin dadaalkaasi. weli waxaa la socotaan daawadayaal wararka shacabka TV ciid wanaagsan kulli caam wa antum biqeer ayaan u dileenahay. war saxaafadeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa looga hadlay awaamir la soo saaray oo ku saabsan arrimaha ciida. nuqul ka mid ah waraaqdaas ayaa waxaa loogaga hadlay digniin loogu diray hay-adaha xilliyada ciida Carafo isla markaana bixiya xoolaha gowraca ah ama udixyada loo yaqaan. wasaaradda diinta iyo qaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in kawaano loo ogol yahay kaliya lagu qali karo xoolaha wixii taasi ka baxsanna dawladda Soomaaliya ay la xisaabtami doonto cidii ku dhaqaaqda. go'aanada ka soo baxay wasaaradda waxaa ka mid ah kow dhammaan hay-adaha samafalka qayriga ah qaabilsan kuwooda wadaniga ah iyo kuwa caalamiga ahba ee dalka ka howlgal ama ku sugan ee ka shaqeynaya fulinta barnaamijka udxiyada sanadka 1442 dhanka milaadiyaduna ay tahay 2021 waa in ay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda iyo tan gobolka Banaadir. sida hore loo cadeeyay ma jirto hay-ado xoolo ku qali kara goob aan ahayn kawaanada loogu talagalay. hay-adii la ogaado inay xoolo ku qasho goob ka baxsan kawaanada loo asteeyay waxay wajihi doontaa la xisaabtan. 4 sidoo kale waxaa la farayaa hay-adaha samafalka inay si dhow ula shaqeeyaan guddiga loo xil saaray arrinkan. sidaas ayaa lagu yiri go'aanka ka soo baxay wasaaradda diinta iyo qaafta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. sanad waliba ayaa markii ciid Carafada la joogo dhinacyada duxiyada qala ama bixiya waxay sameeyaan in gudaha magaalada Muqdisho goobo aan lagu talagelin ay markaasi xoolaha ku qalaan sida ariga iyo looda taasi oo ugu dambeynna nadaafad dar weyn ay la soo darasto magaalada Muqdisho bulshada ku dhaqan. ciid wanaagsan ayaan u leenahay kulli caam wa antum biqeer. waxaad ra'yigiina ku soo cabiri kartaan dhowr daqiiqado ee foodan ugu soo aadan iyadoo ummadda Soomaaliyeed ay dhib weyn ku qabaan joogistii ciidanka Amisom ay haatan Amisom waxay leedahay waxay muuqataa inaan isaga bixi doono gudaha dalka Soomaaliya oo midowga Yurub ayaa ka gaabiyay dhaqaalihii ayna sii jireen. warka ka soo baxay Amisom oo la ogyahay xuquuqdii ciidanka Soomaaliyeed in iyagu ay qabaan ayaa ra'yigiina sariimka ku soo cabiri kartaan. qaarkiin haddaad ku cusubteen shacabka TV subscribe hadin ahado muuqaalka like inoo saara. ugu dambeyntiina xiisad cusub ayaa ka taagan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib markii xildhibaanada Jubbaland ay gaashaanka u durureen qaar ka mid ah go'aanadii uu soo saaray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku wajahan qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalka sare qaybta ka imaan doonta deegaanada Jubbooyinka. tiro badan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa diiday in Axmed Madoobe sida uu wax u rabo ay wax u fuliyaan maadaama baarlamaanada dowlad goboleedyada loo xil saaray in ay soo doortaan xildhibaanada soo socda ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
taasi oo Axmed Madoobe caraw weyn ku dhalisay kadib markii ay xildhibaanadu lacag ka doorbideen qorshii isagu u soo bandhigay. wararku helaya shacabka TV ayaa tilmaamaya in xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland midkiiba loo ballan qaaday lacag gaaraysa $15,000 Mareykanka ah in sanadkiiba ay ku soo dooranayaan. arrinkan waxaa la aaminsan yahay in xukuumadda nabad iyo nolol ay saameyn weyn ku leedahay maadaama Axmed Madoobe sida uu wax u rabay ay meesha ka baxeen. guud ahaan warkii aad kala socoteen dawadayaal shacabka TV ayaa intaasi ku dhamee aad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena kale ee wararka inta dib keli doontaan cid wanaagsan ayaan u dilanahay kullu caam wa antum bil khayr.